dib u dhalashada Somali Airlines 34 sano kadib waxaan dib u heli doonaa bisha soo socotay ee Luulyo adeega Somali Airlines laba diyaaradood ayaa soo caga dhigan doonta Aadan Cadde International Airport waa Airbus A310 Boeing 747 iyo Fokker 50 waa guul Soomaaliyeed oo muddo la sugayay waxaa dhaboobaya rajada jiil badan oo jeclaa inay arkaan Somali Airlines Somali Airlines waxa la aasaasay 5tii bishii Maarso 1964 waxayna shaqo bilowday 4 bilood kadib 1dii Luulyo oo ah bisha hadda ay soo caga dhigan doonto garoonka Aadan Cadde 1964 xarunta duulimaadka waxay ahayd garoonka caalamiga ah ee Muqdisho xarunta labaadna waxa uu ahayd garoonka magaalada Hargeysa guud ahaan diyaaradaha Soomaaliya waxay u duuli jireen wadamo badan oo ku yaala Afrika bariga dhexe Aasiyada fog iyo Yurub bartamihii sanadkii 1991 markii uu qarxay dagaalkii sokeeye waxaa burburay dhammaan adeegii diyaaradaha Soomaaliya maalin weyn ayay noqon doontaa 1dii Luulyo oo horay u ahayd maalintii ay koonfur xornimada ka qaadatay Talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfur waa laba farxadood oo kulmaya haddii aysan gadaal wax iska bedelin saf dheer ayay dadku ku sii jiraan waxaana la sugayaa Somali Airlines